odayaasha iyo cuqaasha labeenta u ah gobolka Gabiley oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Gabiley ayaa waxa ay baaq dheer u direen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi baaqan ay u direen madaxweynaha ayaa ku aadanaa inay xukuumadda Soomaaliland faraha kala baxdo golaha deegaanka degmada Gabiley oo muddooyinkii u dambeeyay ay sheegeen odayaashani in ay faragelin baas ku haysay madaxtooyada Soomaaliland iyo xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi odayaashani ayaa waxa ay carabka ku adkeeyeen in golaha deegaanka degmada Gabiley xor looga dhigo cid ay u dooranayaan maayirka magaalada Gabiley isla markaana ay codkooga siiyaan oo ay gacanta u taagaan ciddii ay u gartaan inuu noqdo duqa degmada Gabiley waxaana yiraahdeen Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane madaxweyne si weyn baan ku salaameynaa waan ku hambalyeynaa adigoo madaxweyne aan dooranaya doorashada aad qabatay ee labada gole ee isku sidkan sida ay u dhacday iyo sida aad ugu dhiiratay sidii ay dadweynuhu u codeeyeen inta waan ku hambalyeynaa talabaad waxaan leenahay mudane madaxweyne oo la ka codsanayna anagoo reer Gabiley golaha deegaanka ee la doortay ee 13 ah hal laga daayay fargelinta mudane madaxweyne si weyn baan kaaga codsanaynaa waayo waxa weey dadweynaha iyagii uu kacsan yahay haddii aad fargelinta ku samaysaan waxa ka dhacay cidda ku geysatay baa ka mas'uula annagu dadka waan hor joognaa waanu dejinay waxba ma jiraan baanu nidhi aad iyo aad bay u degeen haddii la soo dhex galo dadka oo la arko iyo dhaqaaq kala jiro de wixii ka yimaada kulay waxa naga dhaafsan waxaan leenahay nabadgelyada hal la ilaaliyo qarannimada hal la ilaaliyo codka shacbiga hal la ilaaliyo sida wax loo doortay hal la ilaaliyo mudane madaxweyne marka ugu horeysa waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi sida fiican ee xilkaska oo doorashada u qabtay labadii gole isku sidkana oo qabtay ayaan ku hambalyeynaa oo aad ugu hambalyeynaa waxa jirta oo madaxweynaha u sheegaynaa inay jirto faragelin badan oo wasiiradiisa ka imanaysa Gabiley marka waxaan ka codsanaynaa inamada 13 soo baxay waa 13 nin reer Soomaaliland oo madaxweynaha hortiisa iyo Soomaaliland ba isku mid ah iyaga xaq u leh cid ay dooranayaan waxa leeyahay haloo daayo dhalinyarta yaa lagu faragelin ciddii iyagoo ay arkaan dalka inuu wax qabanayso ee degmada wax qabanayso iyaga haloo daayo ummadda reer Soomaaliland isbedel baa u baahan tahay sida Hargeysa ka dhacday in maanta hal Gabiley ay ka dhacdo ayaa u baahan tahay marka waxa leeyahay madaxweynaha shacbiga haloo daayo xildhibaanada soo baxay faragelinta laga daayo madaxweynuhu amro ayaanu ka rajeynaynaa waana ku rajooynahay inuu taayeeli doono waxaanu u qabanay hambaliyada koobaad madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ee qabtay doorasho xaq iyo xalaala oo ay deere hirdin waxaan halkaa gadaal ka raacinayaa 13 inan ee ka soo baxay Gabiley waynama mutacalimiina mid loo dhaafa lahayn garasho dheer leh intoodii baa hadhay iyaga istooranaya waxaan codsanaynaa in loo daayo doorashadooda inay si xor iyo xalaala isku doortaan maayirka iyo maayirka xigeenka waana hambaliyo waxaan leeyahay madaxweyne gobolkan Gabiley waa gobol aad iyo aad ku taabacsan aadna ku hambalyeynaya haddaan cuqaasha nahayna waxaanu kula jecelahay mar kasta magac sare inaad noqoto waxaanu maanta leenahay waa in isbedelka la tixgeliyo isbedelka aad samaysay adigana sharaf bay ku tahay ummadana sharaf bay u tahay laakiin haddii isbedelka la tixgelin waayo waxay noqonaysaa dhaawac adiga ku yaal qaranka ku yaal ummadda ku yaala gobolkan Gabiley wuxuu tarsanayaa oo kale in maayirkii hore joogay loo xidhay 5 inaan oo xildhibaana oo jeel la geeyay Soomaad garan
maantana waxyaabaha sifayaalo badan oo soo baxbaxayaa jira waxay noqonaysaa haddii mar dambe la yidhaha waa la afduubayaa inaan gobolku doorasho dambaba gelinba ama tu madaxweyne ha noqoto ama tu deegaan ha noqoto mid dambe inaan la gelin taana u malayn maayo adiga xaggaaga inay ka socotay meelahan yar laakiin dhexdeeda soke ayaa kolley wax ka soo yar ayaa wax silina yaryar baa meelahan naga soo yaa ka yimaada annaga oo beeshii ansaareed ah madaxweyne waxaan kuugu mahadnaqaynaa doorashooyinkii labada gole sidii sharafta lahayd eed u maamushay eed xorriyadda u siisay qolo walba waxaanu kaa codsanaynaa sida aad hargeysaba ka yeeshay yaa xornimadeeda in aad u dayso oonad cidnaba ku faragelinin inaad annagana dhallinyaradeedii reer Gabiley dee waa dadkaagii uun xisbi kastaa ka soo baxo waa dadkaagii musaqanta garanaysaa yaa in aad xorriyadooda u dayso oo adiga iyo wasiirada faragelin midnaba aad lagu samayn taasina waanu kaa codsanaynaa mudane madaxweyne Muuse Biixi Cabdi taas aadna aad baan ku salaamayaa raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin marka hore waxaan salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi Xildiid ayaa salaamaya talabaad doorashadii waanu kugu amaanaynaa aad qabatay doorasho fiican bay ahayd qashqash ma lahayn xumaani kama dhicin wanaag baa ka dhacay maanta haddaba doorashadii way dhacday ninba calafkii buu qaaday xusbiyana waa ahaydeen ninba xusbi buu dee tegey wuxuu ka helaba nin dhacayanii soo baxayba wixii soo baxay ee ahaa gobolka Gabiley ee gobolka Cagaarana sidii ay ku soo baxeen waa inay xorriyadooda ku haystaan sidaana waanu kaa codsanaynaa waxaananu ku leenahay madaxweyne raaga noqo madaxweyne dalka ku raago cimrigiisu ku raaga noqo sidaasaanu kugu taanadaynaynaa kuguna soo ducayaynaa haddii aanu ansaartii nahay laakiin intaanu kaa codsanay noo yeel waxa aan baaq ugu diraynaa ama fariin adag ugu diraynaa madaxweynaha in ay jirto faragelin qaawan oo lagu hayo Gabiley xildhibaanadii soo baxay markaa Muuse waxa uu sheegaynaa madaxweynaha in faragelinta xukuumaddu ay nagu hayso oo naga qabto sida mas'uulkii ah madaxweynaha oo loo daayo xildhibaanada soo baxay codkooda xorta ah meesha ay la marayaan taas ayaanu fariin cad madaxweynaha u dirnaa anagoo ku celinaynaa madaxweyne xukuumaddaada faragelinta qaawan nagu haysa naga dah daanun anay caaqiladii ka soo jeeday gobolka Cagaaran ee Gabiley dadku sidaa ay foodkooga iyo magacooga ay wax ugu doorteen waa inay u doortaan cidda ay doonayaan gudahooga madax banaanadan sidii xoolaha in la iibsado maaha waan salaamayaa madaxweynaha karaamada iyo sharafta uu ka qaaday iyo wanaagga waddankood Soomaaliland oo dhan uu ka qaaday dhammaan qurba jooga adduunyada meel kasta ay joogaan anigoo sultaankii guuda ee qurba jooga ah waxaan waxba lama hadayno si uu wanaag iyo nabad mana qaadan karno faragelin qaawan iyo lacag la qaybiyo iyo hodhoolo la isku soo xidho ma rabno war dadka yaan laga qaadin sharaftiisa karaamada innagana ceeb ay noo soo jiidina si kastaba ahaatee waxa maalmihii u dambeysay magaalada Gabiley soo tarayay hirdanka loogu jiro loolanka kursiga maayarnimo ee magaalada Gabiley iyadoo ay soo tarayso cabashooyinka laga cabanayo xukuumadda dhexe ee Soomaaliland ee lagu sheegayo in ay faragelin ku hayso xubnaha golaha deegaanka degmada Gabiley isla markaasina lagu khasbayo in ay doortaan xubin ka mid ah golaha waa Maxamed Cabdi Cumar Maxamed Duur Kurbeynta SBC gobolka Gabiley